السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعنا ولاكسن داوديال ملك ستوديو كجوجتان وسو dhawaada cabdishiinad oo markay barnaamij kala cusub daawadayaal waxaan ku leenahay fadlan nagu soo biir oo subscribe saar channelka haddaad nagu cusub tahay haddii aad nagu cusbeyna markaad muuqaalka dhammaysto insha Allah taala like iyo sharta haylaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعنا wanaagsan daawadayaal meel kastoo dunida ka joogtaan waa markale barnaamijkeeni caafimaadka oo inta todobaadkan insha Allah ku soo qaadan doono mid kamid ah xanuunada aadka u halista badan ee inta badan dadkeena Soomaalida ku badan aad runtii maanta waxaan insha Allah ku soo qaadan doonaa marka barnaamijkeenan xanuunka la yiraahdo typhoid-ka oo aad caan uga ah dalalka soo Korea inaga ahaana bulsho ahaan inagu badan. cudurkan waxa uu ku dhacaa habdhiska dheefshiidka iyadoo uu keeno astaamo kala duwan. cudurkan waxa la daala dhacaya ku dhawaad ilaa iyo 22.6 milyan oo qof. cudurkani inta uu dhimatay waxa lagu qiyaasaa ilaa 200,000 oo qof sanad kasta. cudurkan waxa la xiriiriyaa heerka nadaafadeed oo liita iyo ururka dadka oo bata. cudurka waxa keena ama keenta bakteeriyada nooc kamid ah oo inta badan weerarta dheef mareenka jirka bini'aadamka. bakteeriyadan ayaa la aaminsan yahay in fadhiisinkeedu uu yahay dadka oo waxa weeye inta badan iskaga dab qaado. ilma aragtaydan ayaa ah mid adkaysi u leh walxa badan. waxaa la sheegaa in kulaylka badan oo gaadhaya ilaa iyo 160 degree Celsius muddo 15 daqiiqo uu dili karo bakteeriyadan. waxay ku badbaadi kartaa waxa weeye toddobaado cuntooyinka qalalan agabka caafimaadka qaarkood saxarada. haddaba cudurkan ayaa waxa weeye laga qaadaa cunto wasakhowda oo qofku qaato. marka qaarna waxa lagu laraa inuu isticmaalo qofku xamaam dabadeedna uu iska indhatiro qofku inuu saabuun ku faraxasho kadibna uu gacmo sita bakteeriyadii uu cunto ku cuno. cudurkan waxa jira dad badan oo waxa weeye u bandhigan halistiisa oo u nugul oo waxa weeye uga nugul dadka kale. waxa kamid ah dadka socdaalkoodu yahay shaqadooda gaar ahaan goobaha uu ku badan yahay cudurkani. tusaale ahaan qofku hadduu ka shaqeeyo goob cudurkani ku badan yahay waxa uu halis ugu jiraa inuu qofkan waxa weeye cudurkani ku dhaco. waxa kaloo kamid ah shaqaalaha caafimaad ee baaraya inta badan muunad ay ku jirto bakteeriyadani. tusaale qofka shaybaarka jooga ee baaraya cudurkan typhoid-ka inta badan isagana waxa weeye halis ugu jira inuu qaado cudurkan. sidoo kale waxa halis ugu jira qofku la kulmo qof cudurkan qaba oo waxa weeye cudurka sita oo qofkii la kulmo. sidoo kale waxa kamid ah cabitaanka biyaha oo wasakhooba. marka qaarna sidoo kale cuntadana waa la sheegay in waxa weeye qofku haddii cunto wasakhaysan oo waxa weeye ku wasakhoobi karta sideen horeba xagga sare ugu soo sheegnay qofku inuu waxa weeye musqul isticmaalo deetana waxa weeye isagoo si fiican fariisiis kaga soo dhaqin hadhow toole cuntadii bakteeriyada gacantiisa la socota uu waxa weeye sida waxa weeye uu ku qaado. habdhiska dheefshiidkeenu waxa uu inta badan adeegsadaa qaabab kala duwan si uu isku difaaco. waxa kamid ah dheecaano dahaadha unugyadeena si ay uga hortagaan hagardaamo soo gaadha ay sii dhacloosha oo iyadu inta badan burburisa ilma aragtiyada kala duwan ama waxyaabahan inta badan isku qabanin. waxaan ka marnayn dhaqaaqa muruqyadeena oo iyaguna sameeya socod joogto ah kaasoo diidaya inay ku hakadaan wax kasta oo dhib u keeni kara jirkeena. haddiiba ay dhacdo inuu si uu dhaafo dhufaysyada kala duwan ee difaaceena waxa uu keeni karaa astaamo cudurkani. marka astaamaha cudurkan ayaa ah qaar halis badan oo horseedi kara xanuuno daran oo halka qaar kalena ay yihiin astaamo fudud oo waxa weeye dhaqso looga bogsan karo. haddaba waxa kamid ah astaamaha cudurkan lagu garto inta badan ka soo muuqdo qofka uu ku dhaco daal fara badan, madax xanuun, sidoo kale xumad sii kordhaysa maalin kasta, caloosha oo qofka xanuunta, calool istaag ama shuban oo kale, muruqyada qofka xanuuna, dhidid fara badan, qufac qalalan, cuntada oo qofka ka kaco, miisaanka qofka oo yaraada. qodobka ugu muhiimsan ayaa inuu bukaanku fahmo cudurkani inaanu ku dhicin madaxa ee uu madax xanuunku kaliya kamid yahay astaamihiisa. marka inta badan dadkeenu waxay aaminsan yihiin qofku madax xanuun fara badan yeesho inay yiraahdaan waa typhoid baa ku haya laakiin waa astaan kamid ah laakiin astaamaha aynu soo sheegnay aad ka fara badan leh ayaa kamid ah. cudurkan waxaa loo baaraa qaabab kala duwan
marka waxyaabaha lagu baari karo waxaa kamid ah qofkan dee waxa weeye qastaamaha qofku ka cabanayo in wax weeye la eego oo qofka dee dhakhtarkii oo kale markuu tago si fiican u baaro deetana dhakhtarkii marka dambe calaamadaha markuu eego dee waxa weeye waa lagu baari karaa. waxaa kaloo lagu baari karaa qofkii dhiigga laga qaado, saxarada laga qaado, dheecaanada mindhicirada oo kale iyagana laftooda waa laga ogaan karaa. daaweyn iyo maareyn uu leeyahay xanuunkani oo waxa lagu daaweyn karaa oo si guud ahaaneed cudurkan loo siiyo inta badan daawooyin kala duwan oo ay ugu horeeyaan antibioticska kala duwan, xumad jabiye, fuuqa celiyayaal ama waxa weeye IV fluids wax loo yaqaano, nafaqada bukaanka oo kor loo qaado ayaa inta badan lagu daweeyaa. haddaba cudurkan in laga hortago ayaa ah qodobka ugu weyn ee hoos loogu dhigi karo. waxa weeye inuu waxa weeye fiditaan sameeyo ama waxa weeye tiradiisa ay korodho. waxaa laga hortagaa nadaafadda oo kor loo qaado, bulshada inay hesho biyo nadiif ah, in la baro dadkeena waxa weeye dhibka uu keeni karo qashinka la raacinayo, ilaaladaha durduraya xilliyada roobka, dadka reer miyiga ah oo la baro goobaha ku habboon qashinka jirka bini'aadamka ka soo baxaya. waxaa kaloo jira talaalo walow si joogta waxa weeye aan loo adeegsan oo cudurkan waxa weeye inta badan aan loo adeegsan, laakiin waxaa la siiyaa dadka la kulmay qof qaba xanuunka oo kale, halwadeennada caafimaadka oo kale, sidoo kale qaybta shaybaarka oo kale, qof u safraya goobaha uu ku badan yahay cudurkani. talaalkan ayaa inta badan aan loo ogolayn caruurta ka yar 2 jir oo kale wixii ka hooseeya ama qof hore u qaatay jirkiisa oo xasaasiyad ku keenay. waxaa jira 3 nooc oo talaalka ah oo kala duwan oo hadba qofka la siinayo. mid ahaan waxaa la siiyaa qofka qayb ka mid ah bakteeriyada, halka labada kalena lagu mudo bakteeriyadii oo qofka marna dhimatay marna waxa weeye nool laakiin la weeqay awoodeedii. talaalka ayaa ah inta badan carin lagu sameynayo difaaceena si uu uga gaashaanto una unko ama uu sameeyo hubkii uu waxa weeye ku habboonaa. marka waxaa jira inta badan dhibaatooyin laga dhaxlo qofku haddii uu cudurkan si fiican iskaga daaweyn waayo. waxaa ka mid ah cillado ku yimaada xagga maskaxda iyo dareewanka qofka jirka bini'aadanka. waxaa kaloo yimaada qufac saa'id oo soo noqnoqda qofka ama nabar ku samaysma waxa weeye dalqada oo kale, qaybo ka mid ah oofta qofku waxa weeye uu yeesho, caabuq ku dhaca xagga waxa weeye ganaca oo kale, dhibaato la soo darista qofka beerkiisa oo kale, tirooyin yaroo bukaana ah oo wax yeelayn kara qofka bini'aadanka oo isna soo wadna xanuunka oo kale, kaliyaha shaqada oo waxa weeye yaraada. runtii waxa ugu badan ee bini'aadanku waxa weeye ku iman kara qofka cudurkan ku dhacayna waxa weeye mindhicirka qofka oo waxa weeye dhiig baxa oo waxa loo yaqaano intestinal hemorrhage uu ku dhaco qofka, amaba inuu dalool ku yimaado mindhicirka qayb ka mid ah oo intestinal perforation uu ku dhaco. waxaa kaloo inta badan caan ah oo dhibaato ku timaada inta badan dhiigga qofka ama DIC-ga. inta badan bukaanka waxaa la gudboon inuu cuntada xoog loo kariyo, diirka laga dhilo ama xoog loo maydho. waxa iyana qasab ah in qofka waxa weeye lagu adkeeyo nadaafadda gacmihiisa, qoyskiisa, bulshada oo idin inuu kor u qaado si uu u yareeyo halista caafimaad ee ka dhalan karta. intaasaa runtii ugu muhiimsan. aad iyo aad baad mahadsantiin daawadayaal. intaan ku kulmi doono muuqaal kale midna wax kaga tegaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.